présent de l'indicatif qaybtii saddexaad ee verbiyada ee loo yaqaano verb du troisième groupe. qaybta saddexaad ee verbiyada ee loo yaqaano verb du troisième groupe ma ahin mid joogto ah, yacni irregularity. si aan u fahanno ama faahfaahin u helno waxaan soo qaadanaynaa dhowr verbi iyo terminationka ama waxa ugu dambeeya verbiyada. waxaa jira dhowr waxyaabood halka aan kusoo koobay. waxaa jira verbiyaal ugu dambeeyaan du, u, tre. waxaa kaloo jira verbiyaal kale oo ugu dambeeyaan t, r, u. waxaa kaloo jira sidoo kale verbiyaal kale ugu dambeeyaan u, n, du, r, u. waxaa kaloo jira verbiyaal kale ugu dambeeyaan t, i, r, tur. waxaa kaloo jira verbiyaal kale oo ugu dambeeyaan zoutre, s, o, i, t, r, u. zoutre. aan soo qaadano tusaale verbigan tru ama ugu dambeeyaan du, r, u. tusaale verbiyada waa halkan kusoo koobay waa disons perdre, apprendre. waxaa loo sameeyaa ama se lagu conjugeeya sidan soo socota. waxa aan mariyay huruda waxa aan mariyay waxa weeyaan radicalka halka hoose ku qoran weeye. j plus radical plus 2s, t plus radical plus ds, il plus radical plus 2, nous plus radical plus ons, vous plus radical plus ez, il plus radical plus ent. marka radicalku waa waxa kuleerka marsan. intaas uma halka radicalka ku qoranta ku qorasaan. waxa ugu dambeysana waa lagu dambaysiinaya. verbiga du, r, u, du, r, u. tusaale waxaan soo qaadanay verbe vendre. je fonds, tu fonds, ils font, nous vendons, vous vendez, ils vendent. waa iibitaan baa la yiraahdaa. waxa qofku iibinayo ayaa la yiraahdaa vender. je fonds anaa iibinaya, waan iibinaya. maxaad iibinaysaa? waxa iibinaysaa hadhow dib damba yaan qoraalka kale oo fraaska dhammaystiran sheegi doonaa. laakiin iminka just waa verbigii saa loo conjugayo waqti xaadir jigniin. waxaan idin sheegayaa ama idin ka digayaa in aad markaad aragtaan u, n, du, r, u aad u sameysaan sidii verbiga iminka arkisan oo kale ay ugu dambeysay du, r, u. laakiin waxay ku kala duwan yihiin du, r, u marka ay ka hormarto ama ayse ka horeyso en. iminka arkaysaan waxaa loo conjugayaa nooc kale ayadna. waa kan tusaale verbiyada soo qaadanina vendre, craindre, peindre. waa kaar looma sameeyo sidii aad verbiga iminka aad arkaysayna hore. waxaa loo sameeyaa verbiga iminka soo socda samka soo socota. j plus radical plus l. radicalku waa waxa kuleerka aan mariyay. t plus radical plus s, il plus radical plus t, nous plus radical plus gn, ons, vous plus radical gnez, il plus radical plus gnet, gnent. ça loo sameeyaa. waa tusaale verbi baan soo qaatay. verbi vendre baan soo qaatay. j'ai faim, tu faim, il vint, nous venions, vous veniez, il viennent. vendre waxa weeyaan iska yeelyeelid. qofku wuxuu dhahayn iska yeelyeela. oo sidoo kale waa kibrid oo kale waxaad ahayn iyo qofku iska yeelyeela. marka vendre bale j'ai faim waana iska yeelyeelaya weeyaan yaa la yiraahdaa vendre. verbiga kale aan xiga verbiyada kale ee xiga waxa weeyaan verbiyada ay ugu dambeyso zoutre, s, o, u, du, r, u. marka du, r, u ba halkan ku dambeysa hamoodin inaas loo sameynayo sidii verbiyadii apprendre, comprendre. verbiyadii du, r, u ay ugu dambeyso oo kale. haddii aad aragto verbi ugu dambeyso du, r, u waxaad hubisaa waxa du, r, ida ka horeysa. en haddii ay ka horeyso sida iminka arkanaya u sameynaysaa. laakiin su haddii ka horeyso waxaa u sameynaysaa sidan soo socota. tusaale verbi soo qaatay dissoudre, résoudre. verbiyal kaloo badan oo sidaas oo kale way jiraan. absoudre wixii lamid ah waxaad u sameynaysaa sidan soo socota. j plus radical plus s. radicalku waa inta aan hoosta xariiqa iyo ka dhigantay radical. t plus radical plus s, il plus radical plus t, nous plus radical plus all vent, vous plus radical plus all v, il plus radical plus all v. ça loo sameynaa insha allah. verbiga kan soo qaatay résoudre baan soo qaatay. je résous, tu résous, il résout, nous résolvons, vous résolvez, il résolve. waxa weeyaan résoudre waa xal, waa xalin weeye. wax problem markuu dhaco ee la xalinayo résoudre baa la isticmaalaa. verbiyada kale xiga waxa weeyaan verbiyada ay ugu dambeeyaan tu, r, u. tu, r, et, tre. waa tusaale soo qaatay au maître, permettre iyo wixii lamida. maître wixii lamida. iyo verbi kasta ugu dambeeyo tu, r, u waxaa loo sameeyaa sidan soo socota. laakiin mid baa iga dardarana. tida waa la tuuraa
saddexda pronom personnel ee ugu horeysa macnaha waa je waa ti waa il saddexda marka la qorayo tida waa la tuuraa ekhda iyo ida waxa lagu bedelaa sidan soo socota G plus radical plus S radicalku waa waxaan hoos xariiqay waxa yamka oo metr xabadu horeysa waa o waa n waa e t t r u TTRE waa waxaan u baahanahay iminka TTRE waa masaxisa marka waxa ku beddelsa S baa ku beddelsa halka radicalka muxuu noqonaa O M E T ayaa la fahmin S halkan taalo T plus radical plus S il plus radical plus T nu plus radical plus AZ il plus radical plus ENT saas loo sameeyaa haddaba mid kale aan ugu siiyo verbiyada asalkoodu uu yahay ama say ugu dambeeyaan laba T ugu dambeeyaan waxa la qoraa oo kaliya hal T haddii hal T ay ugu dambayso ay jirto hal T oo ugu dambaysana waxa la masaxaa tida waa la masaxaa verbiya tusaalan waa kan waxa soo qaatay oo metr yaan soo qaatay waxa jira laba T iminka marka labada T la T kaliya uma ladina takala waa la masaxaya haddii hal T ugu dambayn lahayd tida kaliya ay jirto waa la masaxi lahaa laakiin iminka laba T ugu dambaysa midba la masaxaya mid waa la disanaya waa ka sama loo sameeyaa jamais tu en mets, il en met, nous en mettons, vous en mettez, ils en mettent. Ça c'est le semaine. Paraître one CMK, TMK. T-claté, T-R-U, T-R-U, T-claté jirta. Marka T da jirta waa la masaxaya. Sidan baa la samaynaa. Je parais, tu parais, il paraît, nous paraissons, vous paraissez, il paraissent. Verbiyada kale ee jira waxa weeyaan ee ugu dambeeyaan T-U-R ee troisième groupe ka mid ah waxa iyagana lagu conjugueyaa sima soo socota verbiyada waa monter sortir se répondre sortir oo dhan karto sortir iyo verb partir wixii la mid ah maanta radicalka waxa weeyaan M U N T U R weeyaan verbigu laakiin radicalku waxa weeyaan M U N waayo T E R waa u baahanahay waa waxa ugu dambaysa ee la doonayo wiish haddaba J plus radical plus S radicalku waa wax inta soo sheegay monti khada soo qaadan su'aal waa M waa E waa N radicalku intaas T plus radical plus S il plus radical plus T nous plus radical plus ONS vous plus radical plus EZ il plus radical plus ENT ça c'est le semaine tusaale ahaan waxaan soo qaadanay verbe partir je pars part, il part, nous partons, vous partez, il parte. Ça c'est non, ça partir, وحويان صعد je pars وصعنا, part وصعنا, ça suit. Il part, nous partons, وصعنا, nous partons وصعنا, vous partez وصعنا, il part وصعنا. verbiyada kale ee ah sida joogtada ah loo sameeyo aan isbedel aan ahayn sida verbiyada markaan soo arkin wax dhamaantood sidoodii ma aysan ahayn way isbedelaan marka kuwan kale ee aan kaan sheegi doono way isma bedelaan si caadiya iyo loo sameeyaa sida premier groupka deuxième groupka saas oo kale marka waxa weeyaan verbiyadu waa faire iyo dur verbe faire iyo dur iyo lire oo kale in kasta halkan aysan ku jirin lire-na iyo saas oo kale marka laakiin waxa halkan isbedesha mid baa isbedesha deuxième personne du pluriel waxa weeyeen waxa weeyaan vous faites vous dites ça c'est non ça halka ma verbe inuu soo dhameystiran je fais faire horto wax weeyaan wax sameyn wax la sameynayo weeyaan faire je fais tu fais il fait nous faisons vous faites ils font ça c'est non ça verbe dire na maxay noqon waa kan je dis tu dis il dit nous disons vous dites ils disent ça c'est non ça waxa kala haday verbigan kala aan siiyay acquérir waxa loo sameeyaa iyadna sidan soo socota j'acquiert tu acquiers il acquiert nous acquérons vous acquérez ils acquièrent verbiga acquérir hadaa aragta sidan baa loo sameeyaa iyadna halkan waxaan kaloo hayaa halkan verbi kale oo s'asseoir ah fadhiisasho waxa hayana loo sameeyaa laba method ama laba wado ayaa loo sameeyaa ka doonto dad waa sameyn kartaa halkan waa aan ku horeyna qaybtan dhinacan je m'assois, tu t'assois, il s'assoit, nous nous assoyons, vous vous asseyez, il s'assoit. نعم ما waxa sameyn kartaa sina soo socota je m'assieds, tu t'assieds, il s'assied, nous nous asseyons, vous vous asseyez, il s'assied. Ça soo sameyn kartaa haddaba verbigan kale ee coudre waa verbi waxa uu dambaysa du ba uu dambaysa caadiyan waxa loo sameyn lahaa sidii aan ugu soo aragnay ee ahayd verbiyada ugu dambeeyaan habka la raaco laakiin horun oo la raacayaa laakiin waxa la raacayaa oo kaliya trois première personne
dizankili inta oo kala ima la raacaya jeeda tiida ilta waxa u sameynaysaa sidii habkii aan soo aragnay hadeero laakiin saddexda kale way ka duwan yihiin bal haan aragno je couds, tu couds, il coud, nous cousons, vous cousez, il couse waka ina faantaan filaya saddexda u horeyso waa sidii habkii caadiga ahaa ee aan soo aragnay ku soo aragnay prendre ama verbiga aan conjugaynay bilowgiiba waxa kaloo jira verbiyal kale oo halkan aan idin ku siiyay versida tusaalena pouvoir iyo vouloir oo yakana sidaan loo sameeyo pouvoir je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Pouvoir waa waxa karaysiyan je peux waan karaya tu peux waa karaysa il peut waa uu karaya nous pouvons waan karana vous pouvez waa karaysin ils peuvent way karayaan vouloir je veux vouloir wax doonaysid je veux waan doonaya tu veux waa doonaysa il veut oo doonaya je veux tu veux il veut nous voulons vous voulez il veulent way doonaya doonitaan waan doonayna waa doonaysin way doonayaan verb vaincre ayaa halkan idin ku siiyay oo ajiib iyadna wax weyn verb vaincre وهسه شو بدي لسه أنا بلها نعرفنا je vainc, tu vainc, il vainc, nous vainquons, vous vainquez, il vainc ça c'est le semaine verbe vaincre ça c'est le semaine sans opération verbe كله يعني سيو حمي verbe aller au présent il n'a totalement وسوده بدشاه je fais, tu fais, il va, nous allons, vous allez, ils font ساسا لو سمعينا وعناد إيدنا قد حفظان خلاص انت سوى عشر كني إذن يونو قدن حي إن شاء الله تعالى بكو حنصوص مننا وكلا فيرب إتقى يا أفوار أو بريزون قديمنا حنص إن شاء الله سمننا معي انتن أو هذا فتيرة مستقبل وقت صعدة سدي بالو سمع إن شاء الله سمننا وحكلون وحي قدونا عشرك إلو يقانو كرامر وaf Soomaaliya insha Allah ta'ala la socdo waan hadii aad shirkad ka heshay like saar hadii aad ku subtahay subscribe hadii aad faafahin aad ka rabtana qaybta commentiga nagu soo qor waad mahadsantahay